la weydiin karaa taas qofka iyadoo saas khudbasiro soo martay oo nin banaan ka mehersatay ninkii uu furay haddana nin kale gabrinimo u guursaday oo qarashka gabrinimo ka bixiyey oo haddana ku qanacsan yahay sidee ku kasbatay iyada barnaamijkaas sidee ku keentay iyada in laga horeysto bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anigu waa Cumar Maxamed iyo Isbedel Podcast. xalqad cusub, fadhi cusub, mowduuc cusub insha Allah kala maqnaasho dheer kadib. maanta mowduucana waa mowduuc iyaga duwan waa insha Allah oo xasaasi badan agama oo jaamacad leedahay haysato Muqdisho iyo meelaha kale laakiin hadda special ahaan Muqdisho meel walba ay haysataa qaas ahaan maanta danahay dhalinyarada Soomaaliyeed fa insha Allah magta shaqafna xaanu ah maanta Mukhtaar Cumar Mukhtaar kusura walaal alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh ku dhabahay mowduucana maanta waxay tahay oo arinta aan dhowr waa laga hadlay mise dadka qaar ka sheekaysanayeen waan maqlay xaqiiqan u mahayo maadaama wiil dhalinyaro Soomaaliyeed tahay oo jaamacadooyinka iyo wax la mid ah ka haysid dhalinyarada ku dhex joogtid bulshada khudbasagada si waan khudbasagada oo wax jagamiya boqolkiiba meeqo intaad ka haysid qaabka isku maagaan mowduuca saabna inaan galno مسألة خطبة سجدة محات واحد جاكم يا مسح جاكم أنا تاسوتين إن أقعدوا والدين تقال لما سؤال والدين تقال ما أنت دم مغلان حلقة هنا سؤال إسويديان أو بشكل كقاعدة ويل كود بس جودة سبيشال هذه قبل عام فهمتي لأنه وادتك أو مانك أو ولاية دلقة فهذا الكوكوف غنية إن هذا ما سنتها مستر عمر ورمرت موضوع خطبة سجدة أو حجرو أو منهم guud ahaan dhalinyarta Soomaaliyeed maanta si aad iyo aad boqolkiiba boqol dhigi karo u saameeyay oo ah in wiilashii iyo gabdhihii ay isguursadaan ama ismehersadaan iyadoo markaas si qarsoodi ah oo aan waalidku waxba ka ogeyn ama qaraabada ama ehelka waxba iska ogeyn in la isku mehersado waa wax mowduuc aad iyo aad u baaxad weyn oo Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya aad ugu jiro u saameeyay waa dhalinyarta Soomaaliyeed tan kale khudbasiradu ma banaan tahay in banaan taas waa arrin culumo لكن واحد موضوع جروه وهذا أو سعادة أو دتك كل رقمان ومدينة هستوى. سؤال شتى قابك اسكو فهمتانك محاكينه يعني مثل توتال بقول هذا دنكاس جامعة مثل دكسي صار قاصة هذا جرى حتى مشي كذا. هرتا جامعة كلي ملوصة لينكرا. حتى هو جرتا اسكول ذخار أما ميلها ما marka la joogo qaastan wuxuu badan tahay secondary marka la joogo badan tahay qaastan marka la joogo badan tahay qaastan kalaasida ugu dambeeya laba kalaas marka la joogo saddexaadkii afraad marka la joogo iyo sidoo kale marka arday heerkas u taagan yahay waa dareemi kartaa heer jaamacadeedu hamina macnaha jaamacadana kulliga ku xigtaayo waa aad u saameysaa laakiin jaamacadaha boqolkiiba 80 ayaga u badan ardayda jaamacada dhigto jiro macnaha saas barnaamijku dhaqo xataa waxa la helaa dad macallimiin ah oo sameeyo khudbasirada si waliba oo macnaha firsas la'aan ah su'aasha oo hadda muhiimada oo ilaa hadda ii taawan waxay tahay khudbasagada dhanka gabdhaha qaastan wiilka arintiis waa nin wilaayadiis gacanta ku haysto mogtahay yani dadka wilaayada laga bixina oo bari damba marka gabadha laga soo doonto oo dhahayn waalidinta gabadheena waa gabar waa saas oo boqol holaad ku rabo okay dhanka gabdhaha ahaan dhankooda ku badan tahay qaabkee wax ay ka dhaxgood mise gabdhaha mis og yihiin mise qaabkee lagu qagna qogsooni ahaan guumay ku dhamaataa arinta mise kala tagay ku dhamaataa oo haduu soo baxo yani khaasan dugsi sagaan soo bilaabno dugsi sagaa yani aad ma santahay horta khudbasiradiisa guudaan waa baahi guur waa sideeda oo qofkana uu rabo inuu macnaha danihiisa gaarkaan oo wato uu macsiye iyo waxyaalo noocaasna inuu ku dhicin oo ka fogaanayo marka la fiiriin maanta yaa ku macnaha baahida khudbasiradii isfahamka yaa ka dambeeya su'aasha waxa u fahmi macnaha isfahamka khudbasirada gabdhaha dhankooda ka imaataa iyo baahidaas mise wiilasha dhankooda ka imaataa saas u fahmi su'aasha horta baahidaas waa baahi laba dhinac ka jirto oo dhanka dumarka ama gabdhahan way ka imaataa dhanka ragga ama wiilasha labadaba ka imaataa waliba waxaan dhihi karnaa boqolkiiba 90 wiilasha u badan inay barnaamijkaas araajiyo ama codsi dhibtaan
walow ay jiraan gabdho qaar oo ay laftarkooda barnaamij noocaas ama fikir haddii wiil xiriir ay la sameeyaan fikirkaas usoo bandhigaa. Laakiin bandhigista fikirka waa lagu kala horeeyaa 100% wiilasha u badan inay soo bandhigtaan oo gabadhii ay noqod bisreystaan si hoose u marsidaan. Ayagaa badan u badan. Saameyn marka la dhaha marka saameyntu badan ku dhacdaa gabdhahay ku dhacdaa saameyntu ugu badan. Saameyntu laba saameyn waa midna waa positive midna waa negative. Si laba qaab u kala saameysaa. Haddii gabadhan la qodbisreysto oo ninka dhalinyarada ah waxay ku xiran tahay qofka shakhsiyadiisa iyo asal ahaan waxa sababta waxaan u geysay. Qof diyaar u ah ma yahay wixii caqabado meesha ka yimaado nin qaabili kar ma yahay. Xalay ninka aan soo shaqeysanin inuu macnaha familkiisa salaano kale dad gacan ku hay yihiin. Haddii qof noocaas uu yahay saameynta ugu badan negative u badan tahay saameynta dhacaysa oo gabadha ku yeelanayso negative u badan tahay oo ah in uu yeelato in meel cid looga tago in macnaha la dhaho anigu ma ku qaabili kari wuxuu ma haystay iyadoo marka hore aan ka fiirsanin. taas waa saameyn negative si negative u dhacaysa macnaha. Laakiin haddii mar ninkii uu yahay nin oo duruuf ku kaliftay laakiin wax haysto oo isdhahay macnaha ilaa email hebel aad ka gaarayso bal waxa si hoos u wado markii checkpointiga meeshii uu rabay uu gaarana haddii wax soo baxaan diyaar u ah inuu gabadhii waalidkeedii uu ka hortago qanciyo raali gelin ka bixiyo gabadhiina waalidkeedii uu ka garbaxo oo guri u yeesho qofka qof diyaarsan haddii uu yahay saameyntu waa positive markaas aydan wax saameyn intaas inta loo yani ma dhacdaa yani qofka asoo oo qodbasagada u boodin gabadha inuu waalidkeed ku doonto mise ma ku gabdhaha badanaanka loo bandhigo yani si easy ma ku ogolaadaan aqli xumo ma u geysi mise dhankood awal baasha way ka socotay iyo horta qodbasarada inay gabadha ogolaato maxaa keeni karo su'aal muhiim ah waa hal point ay keeni karaan isla yani dad iga arag duwan jiraan waa laga yaabaa gabadha jaceelkeeda in looga faa'iideysto ninka inta ay jeceshahay heerka u gaarsiisan yahay inta ay jeceshahay in looga faa'iideysto. Number 2 lacag waxaan ku raaddaa marka gabdhaha ayaa macnaha saameynta ugu badan ayaa ku dhacdaa ayagaa macnaha laba saameyn labadaba ayagaa qaado positive iyo negative ay ahaataba oo ah haddii ay noqoto in gabadhii lagu boodo oo laga khiyaano ama la dhabar jabiyo la yiraahdo uur inay qaado aniga oo ku furo camal in la dhaho ama iyadoo markaasi gabarnimadeedii meesha ku weysay oo haddana lagu furo. Saameyn kale oo laftirkeeda inay gabadh uur yeelato waa saameyn in gabarnimadeeda ku weysoo ninkii uu ka tago waa saameyn kale oo negative ah. Saameyn positive ay yeelanaysaa waxay tahay haddii lacala barnaamijkiisi ashwaaci oo noqdo Soomaalidu waxay tiraahdaa ani ku sheegi maayo shantii ku sheegin macnaha haddii gabadhii uur ay yeelato 5 bilood ay gaarto uurkii waa soo baxaya waxaa imaanaysa marka in gabadhii laga shakiyo ama xataa iyadoo markaas walaac ay noqonayso in la weydiiyo maxaa khaldan inay gabadhii sheegto ninkaas baa uur yeelay then familkii wiilkii soo laabato ay tiraahdaa haye aniga cidii waa igu fahmeen barnaamijkaas jiro saas marka wiilkii asoo daacadiska yahay ama nin oo markaasi awlaadiiska naxa haduu yahay inuu soo baxo oo cidii u imaado oo gabadhii la hadlo cidooda kadibna meeshii labada family soo arkaan la isu fahmo meeshii qoys ka yagleelaan taas waa saameyn positive ayadana ma dhacdo laakiin sayala tahay ninka intuu xasan dhicin gabadha inay dhahdo toos ma igu soo doonatid wax bagashadii aan wato mise yani fikirkaas ma aaminsana dhaleeto Soomaalida ma aaminsana gabadha ayada wax baganays in aan la guursan karo mise wax la mid ah. Horta niyo qodbasiro marka la hayo wax qodbasiro loo dhahay waqti ayada marka sababta qodbasiro loo dhahay waxay tahay in macnaha la qariyo oo dadka kale indhahooda ama fahanka dadka kale in laga qariyo haddii wali tahay ama haddii walaal yihiin ama haddii asxaab tahay ama haddii qaraabo yihiin marka wixii ayad qodbasiro loo dhahay positionkeeda taala macnaha haddii la rabo in waxaan family qaraabo inay ogaadaan la rabo magacaas ma la adilheen oo sida Soomaalida way kala qabaa'il duwan tahay kala gobol kala degan tahay dhaqamo kala duwan leedahay inkastoo Soomaali isku dhaqan waa isku luqad waa la dhaho laakiin markii hoos loo sii fiiriyo dhaqamadooda way si kala duwan yihiin qoloba si ama qabiil walba ama qoloba oo gobol degta si bay isku guursadaan marka sida guurka caadiga ah anaga waa naqaanaa gabadha markii hore waa la doontaa maal iyo waxbaa laga geeyaa waa yarad iyo waxbaa dhahan dadka
marka waa gabadhii waa la maamuusaa si xataa waxaan naqaanaa in familkii gabadha wiilkii gabadha cidda dhaleen in arooskooda digtaan ama guurka ay soo digtaan oo farxad la samaysto. haddii mawduuc sidaas uu yahay kaas waa guurkii caadiga la yaqaanay jidkan oo sunnada noo banaysa. نعم imaa kan khudbasirada ah ku imaan karaa macnaha in waalidka loo tago ama ka hor waa mas'alo isku hoos duugan waay. gabadha macnaha horta badanaa sida hore kuu sheegay wiilkii ka imaataa in khudbasirada duruufteed doontaa keento cilad walba ha jirto wiilka dhankiisa ka imaanaa in khudbasiro la dhaano waa si hoose isku marsanayna. laakiin ogolaashiyaha cidda leh waa gabadha. gabadha waxaan ku dhahay waxaa loogu faa'iidaysan karaa jaceylka u qabto ama lacagta intay la eg tahay iyo waxyaalo noocaas oo ugu faa'iidaysana. haddii iyadii ogolaato waa ogolaatay. haddii iyadoo dhahdaan in familkii iga soo doono si caadi ii guurso marka inuu ku buuda macquul kala macnaha haddii asi rabin uu rabin qofka ama shakhsiga markaas ama ragga ah oo gabadhaas xiriirkaas falgalkaas inuu la sameyn rabo haddii asi uu rabin oo diidaya wuxuu leeyahay ma rabo sidaas. khudbasiraa rabaa khudbasirada diyaar muu tahay haddaa u ahayn waa hor u deey waa macnaha. marka taas iidan calam su-aalaha ka dhalinayso wixii ka imaado yaa mas-uuliyadda qaadaya marka. okay in la ogolo ninka sidaas ah seenba waxa waaye wada fogaa dhooti wuu boodi karaa. ninka waa kuu sheegay wax kasta ka imaan kara ninka inuu ogolaado uu dhaho walaalay sidaas mi ahaa waa macnaha wax baa kugu soo baxay waxaan diyaar u ahay inaan ku xaliyo inuu dhaho ama inuu dhaho waa ku keliga. waxaad idhahdeedeeti macallimiinta qaar xataa ay sameeyaan si waxaan macallimiin sameeyaa jiro macallimiintaas oo ardaydood guursatay guurkoodta xalaal waay guur ahaan laakiin meesha waxaa lagu soo lifaa khudbasirada baashi marka gaartay ay xumaatay macallinka mise ardayda waxay ila noqotay ani hadda wax dadka dhan markaas og yihiin mise dad badan markaa iskuulka jaamacadda iyo wax ardayga inay is og yihiin yani qaabkee sidaas yani oo saas dhan la isku og yahay dadka normal may noqotay caadi miya mise ifhamsiyo khudbasirada sidabuu isfahan hoose waa horta isfahan oo laba qof ilaa saddex qof aan ka badnayn waa macnaha marka qof dada ogaana haddii la ama qoys macnaha wax diiba qoys in loo bandhigo la rabo يعني شن يعني أفضل سدحان قف من أفيس هذا كبدنا سدح أفر مكبدنا دك أوك معنا برنامج كسوك أسيكنا هذا فالكاس عملك جو أنت كذي أنت كبدنا ما أوجع سداسي باشو ساعتها ساسي ساعتها هو سوا معنا برنامج هو صلوات دقي ودك كلاسي عشوائي عدك إنه أوجع هذا لا يقريوه مرك معلن أرضي وكذا عيسى معلمات معلن كذا عيسى معلن أو معلمات أو دمر معلمات أو رك معلن أو رك كذا عيسى laba arday oo isla wiil gabadho arday isla ah ka dhacdaa meel iska dhicin ma xataa dadka caadiga ah way ka dhacdaa wax oo jirin ma tan waxaad loo soo bandhigo waxay tahay badanaanka dadka ma soo bandhigaan laakiin yani waalidka hadduu ogaago sideega agtaga bixinaya maxay tahay actionkoo bixinaya jawaabtuu ka bixinaya baashi see la naqanaysaa taasaa su-aal ah yani dad waxay taa maanta lacallo ma oga ayaka iyo waxa soo galay meesha kalkaalisooyinka isbitaalada ka shaqeeyo oo maxaa la haweenkii night shift fa horta ma ku sheegaa ani waxa aaminsanahay qaxsatan dumarka ama gabdhaha inay qodbisra galaan caqabada ugu weynba caqabadaha horta waxa caqabada kan mogtahay in qodbisra gabar ay gasho naam أنا ما يقولات نين أكو قولات باهيا كينيس سدار أكو سو شيء وحنا كلها قبل إني كان سحد دافع جعشة لما رلبو إن العق وقفة دي سنة باهي إذا يهيس ولا وهيستو وحياة كلا أو كمية أو سوق لها حكمية إن وارد لترك سخيب كانوا قناعين إن قبل غضب سرقش some of them تاني فهم سي خابك وارد ك حاليا قبل إني كو عداديان أو أفرسنو أما لحسنو ميديسن دمينين أما جامعة بلاي أنك بحن مقرسين كرت nin manoo keeni kartid waxay ka mid tahay culaysaadka gabadha in qudbisirada ogolaato ama ay gasho ku kalifaya ka mid tahay somehow gabadha inay qof doorato qofkiina macnaha qaab oo maldahan loogu diido qofkan wax ma haysto oo kale in la dhaho ama qofka iyadoo jecel afaaro qaab qabiil ama qabyaalad oo kale qofkii in loogu leexiyo la qofkan cidaan mis guursano ama qofkan laan dheer ma aan qabiyo ama lacag ma haysto in la dhaho some of them macnaha waxyaalo qaab noocaas oo kale in qofka iyada rabta in loogu diido
baasinjika kuwa badan kuwa baas yani inta badan oo guurkaas oo jaamacooyinka ka dhaco ma waxaa miyaa kuwa lagu xujeeyo adoo waxba sheega dhameynin kuwa ardayda marka laga hadlayo waxaa u badan gabdhaha dhankooda weliba aan wiilasha priority ma siineen laakiin gabdhaha waxaa u badan ama dumarka gabdho lagu xujiyey ilaa waxbarashadii ay ka dhameeyaan insan nin guursan karin aydan inta ka faa'iideysanay fursada warta marka ninka ha ku noqdo mid aad si dhaqanay mise ha ku noqdo mid aad ku boodo taas waa xaq alla ku qoran taas nasiibkooda iska qaba nin fiican u noqdo waa u fiican yahay hadduu nin wuxuu ku noqdana waa bilaahi waa baasha asaga yani si wanaagsan ku bilaawan wax marka hore basi wada fiican aan ku soo bilaawna marka waalidkaas sabab marka ku dhahay dhanka dumarka waxa waaye ama gabdhaha qaasatan ardayda marka la joogo ama jaamac ha noqdo ama jaamici ha noqdo ama iskuul ha dhigto waxa waaye sababtaas u dambayso waxbarashadii adoo meel ku ogaanin ayaa leeyahay gabadh wiil ma keeni kartaa tan oo kalkaalisooyinka isbitaalada ka shaqeeyaan tanada jaamacada ma ogtaa waan dagan cilada keento laakiin tan qaabkee loo xalay qaabkee yani sidee ku dhacday in kalkaaliso kalkaalisadii مثلا سامبا يعني gabadha markay shaqa ku maqan tahay oo magaaladii wax ku maqan tahay tii ilaahay toosiyo waa gooni laakiin yani wax walba yani waqti haysataa qof maxaa ka fahamtay qof shaqa haysato waay maanta tan waxaan dhahan ilaa aad jaamacadka dhammaysid waa fahmnay mid aan jaamacada way dhammaysay shaqay bilaabtay ayadoo shaqaynayso oo gabaga ah khudbasiga gasho maxaa keenayaan ayadoo shaqaynayso oo meesha doontaa ka shaqaysa micnaha inay khudbasira gasho ayadoo gabag ah haddana taas laftirkeeda way ku lifaaqan tahay waalidka wuxuu ugu lifaaqsanaanaysaa kuu sheegaa gabadha waxaa la dhihi karaa meeqa sana waxaa kusoo barahay 4 sano 5 sano 6 sano bis waxaa kasoo qabanayna biiska jaamacadda kasoo qabanayna bis dugsi sare 12 sano iskuul dugsi dhexe dugsi hoose ma kasoo bilaaban 4 sano ama 5 sano ama 6 sano jaamacad dhiganaysa koostiga aa kugu bixi adoo isoo celin nin iikeen kartin la dhaho yani taa macnaheedu waxay tahay laba mid ninka la keenayo inuu nin maaliysta yahay oo lacagtii wax ay ku baratay laga soo celin karo labaas in la hordhig macnaa la dhaho ma guursanaysaa nin hanti leh oo wixii qarash aa kugu bixi isoo celin leh waa inaa la timaada ama ma ahan waa inaad shaqaysaa oo soo gudaa wixii marka waalidiintaas ganacsiga aan toos meesha u galaan marka 50% 60 waalidiinta waxa saameyn ku leeyihiin in ay dhacdo barnaamijkaas saameyn ku leeyihiin si walba u timaado oo ah gabadha in waxbarashadeedii lagu cadaadiyo haddii waxbarashada dhammaysana la dhaho wixii aad baratay adoo shaqadii lacagtii qarashkii kugu baxay la soo celino ama qof qabiil wax si un halagu reexo halagu jiyo yani taas way dhacdaa waa wax official ah oo si caadi u dhaxwa maanta haddii ardayga gudahood la dhaxtago aan la weydiiyo yani la weydiiyo istiftaa la sameeyo jawaabtooda hashaan naqanay si fiican waa ku kalsoona inay banaan tahay inaysa banaaneen waa taas waa su'aal culimada la weydiinayo taas ma banaan waan ognaa laakiin hadda waaqac wax jooga waay oo dadka ay ogyihiin xataa aan banaan la soo dhigayn waxaa ka dhacday magaalada Bombaaso waxa la wadaad ayaa istaagay masaajid bas ilaahay markii mowduuc oo wuxuu ka hadlay agmahan ku saabsan aday ilaahay markii dadka masaajidka joogay wadaadka xalay joog kasoo deji memberka fa taas waxay tusaysaa dadka waalidiinta mise wax dadka ay ku og laakiin in mowduuc inay ka hadlaan aysan gabin ay qaganaayeen فموضوع نفسه موضوع حساسي وهي هذا قابكو أهم شيء لكن وأجمع أو كان جو كساب سنة لا يأخذ بسيط وحلا مده لكن من دبك واحد كساب سنة يعني وشيء كله واحد سؤال كجيران دتك بدنكو وحواي ورت حلي وحلو جرا هذا التكنولوجيا دي الليفل صار كسعت منها الدنيا دي معناها ديفلوبمنت 5G كسعت هذا معناها حالات كلا اللي سيقولوا منها wax walba marka waa la filan karaa wax walba ilmaha yararka hadda waa wax aan laga filayna waxyaabo qaar ku dhaqaaqayo marka waxaad wax oo saameyn dadka caadi la noqotay waa wax iska caadi iska noqotay qof walba iska sameeyay waad barnaamijka khubsirada sheegayso kale qof walba iska sameeyay wax hadda dib weyn dadka culays ma u arkaan wax in laga naxay la tahay ma dad badan arkaani dhalinyaro oo xataa gabdho ay ku jiraan oo macnaha barnaamijkaas
xataa gabdho qaar xiriir ala sameeyaa jiro oo ayaga kusoo qorshahaas kuu soo dejinayo kuleeyahay haddaan barnaamijkan ku dhaqaqana ka waran intana la marka adi fursadaada ku xiran tahay marka haddii adi qof jaanis gaadi aad tahay oo barnaamijkaas nafis a u aragto waa ku farxaysaa waa gelaysaa laakiin waxaa ka xujo badan culayska ka imaanaya culayska imaanaya ka xujo badan adi duruuftii aad barnaamijka u qarisay weli taagan mogtahay adi waxaa markaa barnaamijka aad aqrinaysid wax walbo la qarinaya wixii loo qariya meesha yaal mogtahay taas ayadoo joogto wax ma jira qisooyin saas camal laakiin ultimo si fool xun u dhamaatay oo yani si public ah oo aad iyo aad yani wax qisad ka haysid waa wax badan aniga qisada aan hayo hal qisaa ka jirto oo qof aan asxaab nahayn oo laakiin qisadaas macnaha ma ku dhamaanin qaab markaasi oo qanaac darre ah ma ku dhamaanin dadkaas dad isku qanacsanay ahaayeen isguursadeen marka inay barnaamijkooda uu socon waayo qodbasiradaas sii socon weysay aniga kuley meel isku mehersadeen ma laakiin qofkii aa saaxiibahayna iga sheekeeyey oo i dhahayniyo qof heblaayo aniga si hoosaan u mehersaday waana xaaskayga taasna waxaa dhalisay dad meel ka wada shaqeeyaan ahayn inuu igaga shakiyey inaan xiriir la leeyahay shakigii keenay inaan qoftaas xiriir la leeyahay inuu iga shakiyey waxay dhalisay inuu wixii jir iyo caddeeyo oo dhahniyo qoftaas maalmaha dhankeeda u badan tahay waa arkay marka wuxuu yidhi qoftaas aniga war waxaan aaniniyo qoftaas si caadi oo shaqo asxaabnimaan la tacaamulaa mooye wax xiriir ah igala dhexeeyo ma jiro waxaan dhahay caadi iska dhig kule haddaa qabtan allah kuu barakayaan dhahay adiga bilooyin markay kasoo wareegtay adiga dhowr ilaa 8 bilood 6 bilood markay kasoo wareegtay oo ii sheegay macnaha inay ultumi kala tageen markii aan sii wareystay wax may uurmay ku yeelatay waxaa nacas wax qaabkii kala tagan aan wareystay wuxuu yirmaynay waxaa ka imaatay yiri inaan isla soo jaan qaadi weynay inay isku macnaha isku jufo ahayn ama isku qabiil ahayn laakiin caqabad kale in uur qaaday fur iyo waxyaalo noocaas ma ka imaan kule aydan ka dambe waa la guursaday waa qof hadda nolol masha Allah su-aasha marka hadda tanaa ka daganbo qofka guursanayay maxaa loo dhahaa gabadhan guugay soo magti maa lagu jawaaba mise hallaa gabadhan taas qofkii waa bikrad Soomaali waxay tiraahdaa mataqaana nin tuur lees oo seexanaya asaa yaqaan marka qofka la guursadaa la weydiin karaa taas qofka iyadoo saas khudbasiro soo martay oo nin banaanka ka mehersatay ninkii uu furay haddana nin kale gabarnimo u guursaday qarashka gabarnimo ka bixiyey oo haddana ku qanacsan yahay sidee ku kasbatay iyada barnaamijkaas sidee ku keentay iyada in laga wareysto bismi qanaaco sheeka kale ahadna astagfirullah bismillah question taas hadda waxaa ka dagan waalidka xujo lasoo istaagaa oo saan iyo saan iyo saan maal saan ah maanta muqdisho lacagta uga hogeyso maalka xilliga hadda lagu jiro oo yani levelka macquulka uga hooseyso kunka waay maal agoos waxa meherka wuxuu gaagaa ilaa iyo $500 lablab meelahaas adi kama dheego okay tan ugu sagaysana waxa waa midoo meeloo gaarsiya midna faan waay macno aan lahayn qaagna faan maahan qaagna xaqiisa islaan goob ah aad u moodid oo intaas ka bixinay fa labadaas agan waxay qabta ahaato wax hadda xaqiiqa kama haysid isku booditaan iyo wax lamid ah yani baashan tan ana hadda tan aan waxaa maqlay inay joogto kaniinooyin iyo wax kale balaayo kale exactly horta waa jirtaa khiyaana yani waa jirtaa sacaadiyan aniga hadda ka hor maraan gabar la sheekaystay qisa aniga u dhacday aan kusoo xasuusto sheekadaas macnaha okay horta waxaan dhibka waxaa keenaya tacliinta la dhihi karaa dadka waxaa maqli jira meesha cilmiga ku bato baxnimadii inay ku badato laakiin anaga waxa naga khaldan ma ogi dadkeena markii wax ay barteen fidnada ku badatay gabar baa mar sheekaysanay xiriir naga dhexeeyey gabadhii waxaan ka hadalnay arrimo ku saabsan awlaad taqriiban waxay ii sheegtay inay rabto 2 sanaba inay hal mar cunug dhasho inay nolosheeda ku apply garaynayso macnaha
labadii sano Ah, macquul waay wax shay caadi ah oo yani labadii sano ama adiga 2 sano iyo bar meelahaas ay igu tilmaantay inay hal mar cunugan dhasho rabto uu badnaana awlaadeedan iska badan 4 ilaa 6 inay rabto ayay ii sheegtay warasee macquul ku tahan waxa dib ilaahay ku siinayo maxaa diiday ilaahu ma sanad isku xig ma u dhashay hadduu ilaahay ku siinayo anagana aan dadaalno maxaa diiday inay ilmaha dhasho ma tir maro maxaa ku diidayaan marka waxay tiri inaan jirkeyga waa aan gabriir si ahaadaan jeclahay haddii ilmihii kursiyimadii ilmaha dhalis ay kugu bataan iyo waa problema kala kulmaysaa macnaha sidaas miyaan dhahaa hadda waayay qof la qabo xaas ah haddii qof ninkaaga uu ku baahdo ma diidi kartide haddii si ilaahay wax ku gelinaya ma diidi karo ilaahu sanad ama 2 sano xirtaa noqotee ani ma diidini dhahda laakiin farsamadeeda isticmaalaa marka arrinta cajibka ila noqotay waxay noqotay in farsamo isa ur ku qaadeenin inay isticmaali doonto inay ii sheegtay oo waa waxyaalo noocaas ah kaniin in lacbi karo ko in ay jirto sharooto jirka lagu dhigsaday xilliga oo jamaaca la sameynayo ma ay toosaan ma yani muddo 2 sano xataa kugu jira badan inay jiraan oo las diro deadline leh oo xilli dibsunto jirkaada ilaa muddo ay ku jirayso waxyaalo badan ay ii sheegtay marka waa ka akhrisan waay waa gumaysa waysi waa kadib waxaan dhahay waxaas khuraafaad waay adaa iska wadato waxaan dhahay igadaa bis waa marka barnaamijkan hadda ku keenay in qofka kaniin uu isticmaalo ama sharoob waxa nooc uu isticmaalo gabadha sideeda ay ku soo noqonayso arrin jirta waa maqlay oo gabarnimadeeda u soo laabanayso la leeyahay soo laabsh ma ahayn baasha soo celinaysa way soo celinay waa jirtaa idan kulli taas waxyaabo jiro oo maqlay waa oo cilmi dhigud aan ku hayo waa wax cadeena u hayo ma taas waa jirtaa waa maqlay tan kale qofka asa horta maxmida jirto aday hadal la dhahday oo macnaha maal waxa la bixiyaa kun horta waxaas waa dadka aan waxba haysanin oo aan macnaha gacantooda iska yar tahay waxaas maal iyo u kala qaato sida ogtahay magaalada dahabka iyo lacagaha la isku gursado wax tiro leh ma ahan يعني waxaan ka soo qaaday maanta levelka dadka ugu hooseeyo aan soo qaaday meesha ugu hooseyso magaalada laakiin dadka maanta magaalada ay u shidan tahay kun iyo waxaas waxay u arkaan magaaladaas biyo iyo waxyaabahaas ay u arkaan koobshax ay u arkaan in lacag $1 wax la isku gursado ay waxay u tahay mucjiso la tahay macnaha waxa waxaas dhaqaale ma aha leh macnaha guurka ay guursan qarash ku baxay horta taas xaqiiqo waa dhaqaale ma ahan laano waxaas waa dhowr qof ku imaatay qadadood keli waaye waliba qadadaad waxay ku xiran tahay meesha ku siinaysa ku xiran tahay yani hotel oo hooseeyo qiimaha lagu kagayo waaye marka qofka barnaamijkaas ama caqabadaas ku qaadanayo qof asib waxaas macnaha interest u leedahay ma qofka ma gabar baa mise gabar macnaha dad waxaa jiro xataa aan rabin inay gabar ilaa marka qofka gabar la yaqaan markuu guursado sheekadu ma sahlan ninka rag shaqo u taal macnaha marka iyadoo meesha laga fiirinayo qof waxaas dhan muhiimad u arkina jira macnaha makala jeclaba oo kale lacag uu haystaa qof taas oo dan kale yahay bis oo macnaha waxaas kale aan waa sida warka hore kaga soo bilaa waxaan ku dhahay waxaan wax iska caadi dadka kala noqdeen heer waxay maraysan la isku ceebsanin oo aan macnaha waxaas wax weyn aan laga soo qaadin waa arkay dad badan arkanay gabar ma qodbisar lagu qabaa ama gabadha iyada qodbisar lagu qabaa ama wiilka gabar qodbisar lagu qabaa marka la tacajubto alla yaabnaa say kugu suurtagal marka wareys ina maqsuud waxaas ma weyn ee waa lagu dhahaa macnaha dhalinyarta wax easy wax dhayalsan karo ma lahan ayag wax fuuday u tahay iska caadi nolosha caadiga kamid noqotay wax had u baahan in laga fikiro ama ceeb laga welwelo ma aha waalidiinta qaar laga ninka walwala ay haddan ogeyn yani oo la tahay ay gabadhood maanta xaalkadina okay yahay wax barashada wax wadato ka suurta galnayn gabadheeda saas gabadheeda sheekh taas waa jirtaa waraa kugu sheegsana taas waalidka ayaga soo in dhacdo ayaga soo waxba inta gabadha ku joogto gabadha in cadaadiyaan gabadha in cadaadis la saaro ma cadaadis ay aan yani waxa ka dhigan gabadha malaa'ika ka dhigan yani qof aan wax geysanayna suurtoodu waxaan qalbigan qofku bilaadan mugtahay qalbigan shaydaana xiriir leh mugta qof baa waxyaabo laga filaysanin ama laga milaysanin iska noqonayo marka kalsoonida heerkaas xataa waxaa fiican ugu yaraan xataa gabadha hooyada inay saaxiib la noqoto waxaa kaloo keeni karto gabadhan baahay macnaha gabadha waxay rabta inay family ama cidda ka dhexe ka heleen
hore usoo sheegay lacagta oo lagu faa'iideysaa walaal gabdhaha ma la fahmayo macnaha gabdhaha badanaa familka qadarin gabdhaha noocaas oo familka qadarin ma ku haystaan macnaha waxbarashadeeda tusaalahaan oo kale meel bay aadaysaa gabdho asxaabteeda soo fiirinay wixii gabdhahaas ay wataan ay u baahanay familkii ma u awoodaan marka culaysaadkaas camal iska imaan karaan dee kaas yani waxa ma ka mid ah markaa fikirka xunka oo markaa qofkaas way weynaanaysaa mustaqbal yeelanaya ilmo koogsiima sugaysaa hadday qofka naftigiisa oo noqdo qof waxa kale qofku haysto bini'aadan kale wuxuu haysto inay milcasanayso qoftaas see mustaqbal u dhisaysaa se la noolaa kaga yani horta mustaqbalka wuxuu yahay si horta mustaqbal وما أدراك ما مستقبل ورد يعني مثلا هذا ما أنت بدناك جوجل كبدنا حو كدما إنه حياتها قبل واحد كلام ملح سنة سهد قاعد اسمه سوشيال ميديا وحكي أكتر ما أنطرنا إنه في فيديو في سنة وحلا مدة حيسين دساس نولوشاس أو بنت أو ماشي كجوت ملح سنة سا ملح سنة كده فوقتنا كده مسكينة مستقبل هرت مرك الله مستقبل مرك الله هلا نعم وح أذيك وكوسة مستقبل معناها قف النور ضمبوا مرقفكم مستقبل كيس كفكرة مستقبل كيس صح ذا أو معناها ربطها كفكرة برنامج كاس ما بكو فكرة مستقبل واحد يكون جارة ومقتى نعم نقولش شيء أنا نقولش دين هذا وحر هذا معناها هذا واحد سميس أنا سميه مستقبل كي معه وحلا واحد معناها أو وحمل درين ملو إسكيالو معناها كاس لكن مستقبل مكلا وح فك وخفك واسيء جارة وشن سنة وهكسنة واسيء بوينت اسيء على ما يسنوا نعم قف هدي قف قديش هذا ما كرتا حكي ما كرتا قف با وداس وكلام جوشس جاري وظيقتي ومري أنا قضيته وهدي سحنتها أنا استعماش نعم لكن هدي قف كوبي أنا سمعنا هذا كوبي واحدة معنا هاي سومالي اعتراض الله في أو دلني نعم لحسة عم قرت لا في أدو دلني لحسة عم قرت سومال لا مرقوفة قضينا قفة كوبيين هذا وحس وقت يركض معنا مسيس هلا يركض معنا وحيوانات كله كوبي مركا كهذا حدي مستقبل بأي كفكر يسوع ومستقبل كأكتر مهم وكيه كبر الصح الآن كل شيء معنا مستقبل كصح وفكر يسوع برنامج خد بسر الله الندي المقصود دعوة مستقبل كصح ده لكن هدي مستقبل بوجو إسكيه إسعاد إسكان معصوم من كلية ماشي يعني هذا حسودو مثلا أنا عن أمود إني سودو ذاي قبلها دكسي دحدكتان إني إسعادس بالهوان صح نعم إسعادس دياني أرت إسعادس ك مس إسناق ساوتا سالو يقانو إسعادس دخسا دون تدي كلي وواحد إسك عامل يقانو وفعل أرت هذا فعل واي أجره وحيابها أشواعي أو سعادة عادي كأن إحنا خذي وكميديا سجع وعملات حن أما دخل ماذا أنا ونكسنين وحتى بالدينين عن بنانين لكن ذاتك عادي للنخذ يعني دمر كعادي للنخذ حتى الدمر ما ويلي سعدي أجر هذا رجع سوق لفعل بس نعم فعل سعدين وهذا والوذ جرا باش ليخذ والوذ جرا واحد لو ما لنا لو إن عبالة سعديها دمر ما سعدين رجع وسعدين لكن برسنتيج كدمر كاكو بدن ما حسوا نهرت عدين تاس ذاتك waa macnaha waxa waaye waxa keeni karta isleeyahay aniga qofka oo is aamin kalsoonida qofka oo is aaminsaneen qofka inuu taqayur macnaha suura inuu sameeyo qofka inuu bedelo muuqaalkiis ama midabka ha noqoto ama tinta ha noqdo seedanta ha noqoto qof inuu is bedelo waxa keenis kalsoon dare mas qof isku kalsooneen noloshiisa kalsoon kuma waa isku kalsooneen sidoo ilaahay macnaha labo ilaahay ma ku kalsoon qofka noocaas macnaha وإلهي قف عن كل صونين أصلا إسكو كل صونين الدين وحا أوجحن وجود لسن قف عن إسكو كل صونين إلهي عن كل صونين معناها إلهي وسيدا إيجابتي أنا كم قناع السنة إلا متى معناها وحقون عيا سيدي معناها كيميكا ذا إيجابت نعم حتى سأنا إسكالي جماعة يا هذا هذا سيد جوكت مسك عدينا اسمكت وأنا واحد كيميكا مرستا واسمه ذو فكي سوا معناها مرك كيميكا كل صونها معناه أصلاً مسكو كل صون إلهي مكو كل صون سو أسيء يهاي مخالك السحدة مكو كل صون سو إلهي كديجان مكو كل صون لكن حكو كل صون كيمي كذا كذا حكي ماذا هدي تنتيزو نقطة أما دي مخالك سير ميدب كذا نقطة إنه صعب بدله هكل صون دراك يعني سمرك
kalsooni daradaas ciyaalkayaga maxay ku bilaabatay khaasatan gabdhaha oo dugsi sare laga dhahay ka bilaabka mise dugsi dhexe wallahi khaasatan dugsi dhexe intaas wax la yaaban waay marka qaar waxaan arkaanay gabdha qaar iyaga dugsi iskuulku tahay dhiigood furan waay midibkood okay but waxaa kasaa wejigeed markaa fiirisid shalay iyo maanta waxa waa dayax camal u faysaa wow waay صح shay iska normal aad qof aftiinaayo wax lamid ah laakiin indha aftiinka wejigeed indhaha kaa galaa taas inay saacadayso waxa kasaa gabadha iyo midibkeed maasha ilaahi uu cadeeyey laakiin hadda waxa kasaa cadaanka kasii caddahay horta maxay ku imaatay in la iscadeeyo ani iyadoo la iscadeynaya adduunka lee keenani waa kusoo biiri micnaa waxaa ka soo yeeshay ragga badanaa gabdhaha iscadeeya waxay ka fiiriyaan wejiga iyo lugaha la isbarbar dhigaa walow qaajir kuwa jiraan lugaha xataa dhaqo way jiraan hatta iyaga dhan isdhaqaa jira xataa oo si caadiyan barkada meel waxay noocaasa la galaa maqaarka caadi loo soo dhigtaa shaqol mas caadiga maqaarka la isaga dhigaa waa jirtaa kuwa iska yaryar oo isnaashnaasho waa jiraan ayagana oo iska waxaana keenayso inay sas kala noqdaan lacag macnaha gacantaa keenayso qofka lacag badan haysto lacagtaa inta la egtaa waa macnaha lacagta inta la egtaa haddii qofta lacag badan haysato waxyaabo oo kiimiko halis adeegsanaysaa macnaha oo si caadiin oo korka fiiqaysa adeegsanaysa haddii lacag iska yar haysatana waxay iska noqonaysaa macnaha dadka waxyaaba yar iska isticmaalo iska noqonaysaa marka taas waxaa waaye waa mas'alo kale waaye laakiin iscadeeska asal ahaan maxaa sababa waa kuu sheegay waxaa sababi karta in kalsooni daro waxaa kaloo sabab u ah in la iscadeeyo rag dumarka inay iscadeeyaan ragga xataa kaalinay ka leeyihiin ragga kaalinay ku leeyihiin ragga markii la dhaho ilaa dad yar mooyee boqolkiiba wax adiga ku siman 15 ilaa iyo 10 boqolkiiba markii la fiiriyo laakiin wixii ka hara wixii ka soo hara ragga waxay jecel yihiin dumarka cadcad ay jecel yihiin naag ama kuwa soo labaya jiro wuxuu ku leeyahay naag maariin ana dhiig furan haddaana jirin madoona aan jirin taasna waa jirtaa laakiin nin ku dhahayo dooq naag black aan rabaa ku dhahayo ma jiro waa hadduu jirin waa yaryahay black beauty magacsan teelgeena boqolkiiba waa hadday noqoto laba ama halay ka noqonayaan ta kale dumarka xataa waxaa leeyahay dumar hadda waa jiraan dumarka rag madow dooqooda u yahay buuxa waa jiraan laakiin rag ma la helayo oo dooqooda u yahay naag madow okay marka ayaga kaalina ku yeelanaya gabdhaha inay iscadeeyaan kaalina ku yeelanaya waa gabadhan saaxiibteeda oo cadaa la guursaday gabadhii saaxiibteeda oo caddeed oo la guursaday ama iyada caddaan ay u dhalat ha noqoto ama caddaan ay suuqa ka kasta ha noqotee oo laba cunug haysta iyadoo madow u taagan waxay is leedahay suuqgeyn waa macnaha suuqgeynta gabadha iskuul dhiganaysa waalidkeed see u ogolaana taas muhiimad ah mogtahay gabadha iskuulayda ku dhiganaysa aad weli hal sano 2 sano ma u dhinna qagasha ku bixinaysa waxbarasha u dagtay horta niyo aad waa masan tahay tan mawduuc oo maxaa lahaa waalidka horta waalidka xilli casri waxaa lagu jiraa hadda aan kuu sheego teknolojiyaddu ay macnaha aada u sareyso waalidka hadda xilli ay wax xukumi karaan ma la taagno maxaa Yurubta ma joognaa anaga Soomaaliya aan joognaa iyadoo Soomaali ay tahay xataa laftirkeeda waalidiintu ayaga macnaha cadaadiska inay caruurta saaraan ama awlaadooda cadaadis saaraan ayaga kala diriraa يعني والدك نفسك كسوق جيدا معناها وكال درنا معناها سالانو كله waxaan su'aal soo qaadanaa hadda TV waa hor waxa la aadi jiray shaneen waxa la xilligii hogaamiye kooxdeedii wixii ka horeeyay 2012 wixii ka sii horeeyay 2013 wixii ka horeeyay waxa la aadi jiray shaneemo iyo waxa noocaas TV la aadi jiray filmaan ma jirin oo dhala guri la soo dhiganayo oo Netflix iyo xasaad soo baxay waxa mobilka app-ka waxa imaaday in macnaha TV ama guri dhala soo dhigto signal la xirto anteena guri laga taago waa shaneemadii oo sideeda ah oo dadban waa macnaha marka maxaa guri hadda muqdisho markaa tagtid guri kasto dhalaa taalo TV research markaas ma soo weydiis dhalada maxaa loo keenay wuxuu ku leeyihiin ilmaha inta meel kale aadi lahaayeen inta meel kale aadi lahaayeen marka saas oo kale keenaysa marka intii gabadhii ayadu iskeed u fasahaadi lahayd wax la ogyahay sameys يعني فسادك يعني ولا قبسيرة
wax la ogyahay sameysana waxaa kaloo aan arkay tusaalahan oo kale gabar cid u dhalanayso heblaayo waa la dhalay gabar yar la dhalay gabadhaas heblaayo waa maduudahay caddaan suuqay taala markay weynaatay caddaha yaal ereyada waa diinta adeegsanaa ka mid marka xataa waalidka inkaas markaa fiirsiiba waalidiinta oo macnaha waalidka ma daleecinaan laakiin waalidiinta oo ilmaamooyinka ka hadlaa ayaga waxa saameyn weyn mu arkaan بدي ما كاس يعني هو أصل كبوك يعني ألف كادو حماضة البقرة متوسيسو wax saameyn mu arkaan bay waalidiinta ده ما كاس هو إذا أول يعني شمال أهل ها wax saameyn weyn inay gabadha is cadeys waa jiraan waalidiin oo wax dib u arko oo shar u arko ka dagaalamo way jiraan laakiin kuwa fasaxan ama kuwa qaar waxa jiro madax adeeg waalidka warkiis inay maqal waayaan oo markii maara loo waayo cunug intay geenaysaa adeeg Soomaali waxay tiraahdaa caasiga iridaad ma moogo taas way dhacdaa laakiin hadda tan yani haddii lala dagaalamo uu diido cunugii iska dhaafaan waalidka wax maarmo uu helan iska dhaafaan ma badna inta saas ah ma badna hal iyo labo iyo shan food ma badna laakiin intan kala aad sheegaysid dadkaas badan ha ma keenay iska wil maamooyinka u tirnaa de asal ahaan ninka soo googso naag nafteed kalsooni ku qabin ilmo ku kooginayso taas ninka waa waxay ku xiran tahay taas marka ninka guursanaya naag noocyo raba asinanka guurka laftirkiisa la isku haystaa mogta guurka waxaa ka taagan su-aal weyn aad dul saaran guurka war horta markaa guursanaysid maxaa kaaga qorshaysan guurka hadafka horta guurka hadafkaa ka leedahay maxaa waay taasa yaa guursanaya qof noocay u baahan tahay su-aalo badan aa imaanaysa markaa guursiisid qof cad miyaa qof macnaa qurux maa ka fiirinaya xadiisaa jira Soomaali oo macnaha dhahay qof rasuulka marka aad dumarka aad guursanaysiin waxaa ka fiirinaysiin walimaaliha walidiiniha waliahliha ولحسبها وحصل في ناس وحسيده ولذلك أصغر معناها دين وحنا كفير سنة وخير بدن ولا تقبل يدك إن الدين كفير سين مرك وحيك وحرنت قف ماشوا كفير هذا قف قرح شيء ده ما نسوا مالك أقوى لكن ده يصدق حد أدشه وكديس سيد قبرنا ماذا ما أنت أبرناس ما هانس عدان خاجة جيتا أو إسايستو أيضا شن دأجي واحد سكير واحدة wax iska yar waa laakiin haddii qurux tahay haddii macnaha cadaan iyo waxaa noocaas qof walba dooqay ku xiran tahay waana taa hadda kusoo sheego anaga raggeena Soomaaliyeed badankood ma ka fiiriyaan gabadha degnaanteeda kartideeda ay leedahay dulqaadkeeda waxaas ma fiiriyaan waxay fiiriyaan naagta ma dheer tahay indho waaweyn ma leedahay sanqaroor dhuwan ma leedahay ma caddahay waxyaalahaas ay ka qiimeeyaan raggeena bullshit waxyaabo kor iska yaalo oo birka maalin zuulayo ama dhammaan karo ay ka fiiriyaan bis ما كفيران كرتي دين بارني ما إني والد كذا بار وتها ما لك فيري وحنا لك فيرني إني قف كرتي له تها أتكيس اللي هذا ما لك فيري وحنا كل لك فيرن قف إلهي كحرن متى صلاة بتكتو صونتو صدقة بحثتو متى وحس انترست مسيران وأنا صوابتك كنت بقولك إنه مركل لو جيلك جودي زبور سنة بلون أنت لسه خبر لسه كفر صوابتك أنت والله إن إسبدل إيه وحنا مده إلهي إن شاء الله سوكو جديو إن شاء الله وقتها كسيو إنه نقدر قاعدين أنا مودا وانجعل على إن شيء كذا نسيو هذا فرد ذنبو يكون ذنبو شيء موضوع ذنبو مختار كسره برنامج كنا حد يو فرد عصب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته